Soomaaliya waxay u baahan tahay xeer jajab iyo heshiis degdeg ah ka hor inta aan xeer iyo fandhal kala dhicin maadaama ilaa imika aanu jirin dhaba loo maro doorasho waxaa jirta halis isa soo taraysa oo ku saabsan inay dumi karaan hay'adka dawladdu isla markaana isqaban karaan dhinacyada iska soo horjeeda oo isku haysta sharciyada dastuurka uu dalku ku socdo taasoo Soomaaliya ka dhigaysa mid ku sii siqaysa god madow oo qaaqula ah dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa kala hogaaminayay wada xaajoodyo burburashan ee 10 bishii tagtay ee May oo ay ku ekayd madaxweynaha madaxweynaha imika xilku ka dhamaaday ee Xasan Sheekh Maxamuud taasoo dabcan hay'adka dawladda federaalka saaraysa cadaadis ba'an waana guuldarrada in dhab hawleed loo dhigo heshiis hore loogu socdo ka shaqaynayay danjirayaasha Mareykanka iyo Ingiriiska u fadhiya Muqdisho ee Justin Davis iyo Charles King taasoo ka dhigan in Soomaaliya ay imika ku socoto dhab aan la aqoonin dhanka uu jeedo sida Al Jazeera ku qoray Afyara Cabdi Cilmi oo ah cilmi baare ka tirsan City University of Mogadishu tan iyo 2008 Soomaaliya waxaa loo arkayay mid kamid ah dalalka ugu xasaasisan caalamka ee u nugul ismariwaaga siyaasadda waliba xilli ay ka sii darayso amaan darrada xaaladda aadminimo ee taagan ee abaaruhu keeneen dhaqaale xumada jirta musuqa sii baahaya iyo tan kale ee cusub ee ah sida ay isu bedelayso siyaasad dhuleedka caalamka oo waji cusub qaadanaysa tii aan Soomaaliya waxba halka uga qorshaysnayn way qabaalka khilaafka imika taagan ayaad ka garan kartaa nooca ay u dhilan tahay siyaasadda jahwareersan ee Soomaaliya tusaale Somaliland waxay doonaysaa inay go'do halka maamulada Puntland iyo Jubbaland ay xiriirka u jiraan dawladda federaalka Soomaaliya koonfur galbeed xaalkeedu ma fadhiyo galmudug iyo Hirshabeelle iyaguna way ku xigaan halka meel badan oo dalka ka tirsanna ay gacanta ku hayso kooxda Al-Shabaab oo dawladda ku kacsan shintiriski loogu talagalay inay ku qabsoonto doorashada Soomaaliya dib ay u dhacday oo baarlamaanka wuxuu 4 sano dhameystay bishii April ee tagtay halka bil kadib uu waqtigu ka dhacay madaxweynaha Soomaaliya waxaan imika taagan xilli ay dalka xukumayso dawlad uu waqtiga ka dhamaaday isla markaana ku socota dastuur ay kaligeed bedeshay oo ay kooxaha mucaaradku ku tilmaameen mid ka shaqaynaya danaha gaarka ah ee madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo sidoo kale aan dhistay guddi doorasho oo halgees ah waxa kale oo mucaaradku ku doodayaan in 4 sanadood ee tagay uu madaxweynuhu jaabka ku shubtay waaxdii fulinta midii xardejinta iyo midii garsoorka intaba waxa kale oo mucaaradku ku doodayaan in dastuurkii la dabaqay 2012 ee kumeel gaarka ahaa uu yahay midka imika dalka sharci u ah waxa barnaamijkan gacan ka geystay maqaayadda Mandy Palace Restaurant oo lagu soo kordhiyay adeegyo cusub sida in lagu karinayo cuntooyinka munaasabadaha aroosyada ducooyinka sanad guurada shirarka iyo dalabaadka khaaska ah oo heer sare ah meesha ay ku taalo shaashada ka milicso sida dirta Soomaaliya imika waxa ka taagan dooda laba dastuur oo isdiidan waana taa ka sii daran xaaladda ammaan iyo midda aadminimo oo iyaduna ah caqabad hor leh wali ammaanka caasimaddu uu aad u soo hagaagay sanadihii dambe misna waxaa jira qaaqulooyin dhinaca ammaanka ah oo ka oogan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya iyo sidoo kale dagaal ka dhacay dhinaca waqooyi waxaan sidoo kale ka marnayn inay dhibaatooyinka sii shadayaan dalal gobolka isku haya iyo tartanka sii xoogaysanaya ee geeska Afrika gacanka cadmeed badda cas iyo badweynta Hindiya dalal ay kamid yihiin Turkiga Saudi Arabia Imaaraadka Iran iyo Masar ayaa si isa soo taraysa u xiisaynaya gobolka geeska Afrika waxaana dabayaaqadii sanadkii tagay ku soo biirtay Israel oo si rasmi ah u aqoonsatay maamulka Somaliland taasoo sii xoojisay hardanka dalalka kale ee isku haya Soomaaliya oo ku taala meel istiraatiiji ah balse aan lahayn qorshe istiraatiiji ah haddaba maxay tahay imika inay dhacaan Soomaaliya waxay taagan tahay meel isgoys ah waxay u baahan tahay faragelin degdeg ah oo ka timaada dhinaca beesha caalamka si dib loogu jiheeyo jahwareerka taagan dalkana looga jiro inuu sii galo qaybsan siyaasadeed oo intan ka sii jurmi weyn shantii kala guur siyaasadeed ee ugu dambeeyay ee 2004 2008 2012 2016 iyo 2020 waxaa gacan weyn ka geystay dalalka Mareykanka midowga Yurub Ingiriiska iyo qaar kale haatana Mareykanka iyo Ingiriisku waxay qaadeen tilaabadii koowaad waxaase Washington iyo London laga doonayaa ku lug lahaanshiyo toos ah sida uu sheegay Afyare wuxuu sidoo kale u baaqayaa dalalka Khaliijka iyo dabcan Turkiga oo muujiyay inuu xiisaynayo dhexdhexaadinta labada dhinac waliba in la soo dhaweeyo tilaabadan Turkiga maadaama ay Ankara saameyn siyaasadeed ku leedahay mucaaradka iyo maxaafadka intaba balse beesha caalamku waa inay cadaadis dheeraad ah saartaa dawladda federaalka Soomaaliya si wada xaajoodka ugu gasho si daacad ah iyadoo diiradda la saarayo doorasho waqtigeeda ku dhacda madaxtooyada Villa Soomaaliya waa inay sidoo kale joojisaa in hay'adka dawladda ciidanka ammaanka hay'adka duulista iyo kaalmada caalamiga ah u adeegsato sida agab siyaasadeed oo ay ku ulayso kooxaha ay isdiidan yihiin mucaaradka ayaa loo soo jeediyay inay si wax dhisaysa ula xaajoodaan dawladda isla markaana
ay ka fogaadaan bilaabista geedi socodyo dhinac roor ah sida hadallada ay ku jiraan dhismaha dowlad kale oo bidaal ah oo aan ahayn midda iminka jirta. beesha caalamka ayaa sidoo kale loo soo jeediyey in cunaqabatayn saarto qaswadayaasha siyaasadda ee adeegsanaya qaabab ka baxsan nidaamka caadiga ah oo dalka lagu qaaquuleynayo. Soomaaliya waxay qarka u saaran tahay burbur, balse weli waxay taagan tahay marxalad laga hortagi karo. waana sababta loogu baahan yahay in beesha caalamku iminka tilaabo qaado sidii ay bariga horeba yeeli jirtay, si Soomaaliya looga weeciyo wadiiqada isburburinta loona ilaaliyo maalgashigii caalamiga ahaa ee lagu sameeyey dowlad dhiska iyo dabcan nabad dhalinta Soomaaliya, ayuu leeyahay Afyare Cabdi Cilmi oo cilmi baaris ka tirsan jaamacadda City University of Mogadishu isla markaana maqaalo ku qora Al Jazeera iyo helina kale. Maxamed Xaaji, Hadalsame TV. City,